وهول قوي لو مغعابو oo xaflad aroos ay ka socotay waxa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha aadka u qiimaha badan halka aad naga daawanaysaan waa bartiini baahinta wararka fadlan sida aad nooga barateen haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato channelkeena waxaan si xushmad leh oo naxariis leh kaaga codsanaynaa hal codsi oo ah in aad fiidiyoga like garayso sidoo kale channelka aad subscribe garayso maadaama ay tahay markii kugu horeysay soo booqato channelka baahinta wararka xafladda aad soo daawateen oo muuqaalka intiisii badnayd aan idiin soo gudbin doono ayaa waxa uu sheegayaa in fanaanka caanka ah Qamar Suugaani oo magaciisa saxda la yiraahdo Maxamed ay ku duntay xaflad aroos ah uu joogay xafladda arooska uu ka qaadayay hees kamid ah heesihiisii hore xafladan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa fanaanka waxa uu ku sugnaa isla magaaladaasi Muqdisho halkaas oo ay uu ka qabtay show isla markaana uu kaga dambeeyay youtuberka caanka ah ee Kinzike Soomaalidu taqaano ee ka caan baxay dhammaan baraha bulshada ay Soomaalidu isticmaasho sida YouTube-ka, Facebook-ka. Haddaba aan ku soo noqono fanaankeenii Qamar Suugaani ee magaciisa saxda ah soo sheegnay oo ah Maxamed ayaa waxa ku isla markaana fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani lagu sheegay inuu xagaasi dhaawac culus ka soo gaaray bal fiidiyoga nala daawan doontaan daawadayaal ku soo dhawaada fiidiyoga oo dhameystiran وهول قوي لو مغعابو oo xaflad aroos ay ka socotay waxa uu u dhow yahay isgoyska Digfair kab ayaa laga soo saaray haween sida u jeedaan meeshan waa meeshii caruusada iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladu ay ka socotay runtii aad baan uga xumahay waxay ahayd farxad waxay ahayd murugo isku bedeshay soo wada daawateen ayaa waxa aad si fiican daawadayaal uga bogateen wixii meesha ka dhacay iyo dhaawicii iyo intii dad ah ee la qaaday ee la geeyay isbitaalada ku yaala dhammaan magaaladaasi Muqdisho dhaawacan culus ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli uu fanaanka Qamar Suugaani oo hadda ku yeeshay saaxad cadowtinimo ah dhammaan baraha bulshada laga isticmaalo dad cadow ah fanaanka Qamar Suugaani isla fanaanka Qamar Suugaani ayaa si kadis ah wuxuu ku tagay ama uu kaga degay magaalada Muqdisho kadib markii uu xaflad sagootina ugu sameeyay isla magaalada Hargeysa gabadhiisii Nasiim Sooraan oo taqaanaan fanaankan caanka ah in taariikhdiisa dib u yara milicsano ayaa wuxuu ahaa fanaan hal xaas oo hore soo qabay xaaskaas oo loo odhan jiray Ugbaad kuna caan baxday Ugbaad Aragsan oo iyaduna ah fanaanad caan ah kana caan ah dhammaan baraha bulshada ee Soomaalidu isticmaasho fanaankan Qamar Suugaani ayaa khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo Nasiim Sooraan isaga iyo Ugbaad Aragsan ayaa waxa soo kala dhaxgalay khilaaf xagga qoyseed ah kadib markii uu Qamar Suugaani si ula kaca uga soo noqday isla magaalada Muqdisho xilli hore u tagay fanaanka ayaa si kadis ah ku furay gabadhiisa Ugbaad Aragsan isla Ugbaad Aragsan ayaa la furay kadib fanaankan caanka ah Qamar Suugaani ayaa waxa uu guursaday Nasiim oo ka timi Cariga iyo Ingiriiska islaamkana ku noqotay si dalxiis ahaana fanaanka Qamar Suugaani ayaa waxa uu haddaba sugaa ay tahay gabadhiisii oo soo noqota isla isaguna ku soo noqday isla magaalada Hargeysa kadib xaggan nolol farxad la wada qaataan fanaanka Qamar Suugaani ayaa hadda ku sugan isla magaaladaasi Muqdisho xagaas uu ku qabtay show isla fanaanka Nimcaan Hillaac ay wada joogaan isla magaaladaasi Muqdisho fanaankan caanka ah Qamar Suugaani ayaa labada xaas ku soo qabay isla xaaska horena soo furay xaaska dabara isla isagu qabay haddaba fanaankan Qamar Suugaani ayaa waxa ay noqon kartaa sababta uu cadowga badan u yeeshay maxay noqon kartaa daawada barta commentiga ku soo qor kuna soo qor adiga oo ka faaleynaya sababta uu fanaanku cadowga badan u yeeshay daawadayaal muuqaalka oo dhameystiran bal ila milicsada waa hol qoobi lagu magacaabo oo xaflad aroos ay ka socotay waxa uu u dhow yahay isgoyska Digfair kab ayaa laga soo saaray haween sida u jeedaan meeshan waa meeshii caruusada iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladu ay ka socotay runtii aad baan uga xumahay waxay ahayd farxad waxay ahayd murugo isku bedel
Please add subscribe to our channel to see more videos.